toddobaadkan guuxa siyaasadeed ee ugu weyn Soomaaliya wuxuu ku qotomay khilaaf la sheegay inuu ka dhacay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre. ugu yaraan waa markii afraad oo warbixin noocan la faafiyo saddexdii sano ee ugu dambeysay oo labadan si weyn wada shaqeeyeen. Sheekooyinkaas ayaa soo dhaafi waayay fadhi ku dirka, laakiin dadka faafinaya xogtan cusub waxay sal uga dhigeen in la isku hayo arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan in ra'iisul wasaaruhu uu doonayo in doorashadu xilligeeda ku dhacdo, halka madaxweynaha la tuhmayo inuu rabo muddo kororsi. waa sida ay sheegayaan dadka soo dusiyo xogtan ama suuqa soo dhigay. sidoo kale in la isku khilaafsan yahay dhismaha xisbiga, labada mas'uul qofka la sharaxay sanadkan iyo xaaladda doorashada maamulka Hirshabelle ayaa ka mid ah waxyaabaha ku lifaaqan akhbaarta khilaafka la sheegay inuu dhex yaalo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Mooshin ayaa sidoo kale la hadalaya kaas oo ay darafka ku dhagan yihiin xildhibaano ku heeba madaxweynaha. haddaba adduunka TV wuxuu raadiyay ilaa xad intay arrintani sax tahay. xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin xoogaal oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen in aanu jirin khilaaf weyn, balse ay jiraan xaalado la abuurayo hadda oo ah in loo kala warramo labada hogaamiye. in ra'iisul wasaare Khayre qabo in doorashadu xilligeeda ku dhacdo waa waxa ugu weyn oo ay nala wadaageen dadkii aan la hadalnay oo isugu jira mucaarad iyo mucaabid. sidoo kale waxay xaqiijiyeen jiritaanka isku day mooshin ka dhanaa ra'iisul wasaaraha oo ay wadaan xildhibaano iyo siyaasiyiin madaxweynaha ku reer ah, kuwaas oo la sheegay inay dana shakhsi ah ra'iisul wasaaraha kula culoobeen. balse dadka siyaasadda dhaxtaalka u ah ee aan la hadalnay waxay qabaan in xilligan aanay macquul ahayn in mooshin lagu bixiyo ra'iisul wasaaraha iyagoo daliishanaya waayo aragnimo hore iyo waqtiga dowladda u dhiman oo aad u yar. su'aasha ay dad badani raadinayaan ayaa ah Farmaajo iyo Khayre ma isla dhammaysan karaan waqtiga haray. inta aan jawaabtaas la helin waa in la helaa jawaabta ah Xasan Cali Khayre ma wuxuu doonayaa inuu madaxweynenimo u tartamo. haddii uusan Xasan Cali Khayre rabin inuu tartamo oo uu ogolaado inuu Farmaajo wax ka dhiso muddo kororsina uusan dhicin, waxay u badan tahay in la isla dhammaysan doono ayay leeyihiin khubaradu. laakiin haddii uu ra'iisul wasaare Khayre doonayo inuu madaxweynenimo u tartamo waxay u badan tahay in la kala tagi doono. haddii uu muddo kororsi doonayo madaxweyne Farmaajo waa inuu ra'iisul wasaaraha bixiyaa oo uu mucaaradka la samaystaa dowlad wadaag. mid ka mid ah xisbiyada waaweyn ee mucaaradka oo uu hogaamiye madaxweyne hore ayaa la fahamsan yahay inay raadinayaan in Farmaajo muddo kororsi loo sameeyo iyagana laga soo xulo qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha xiga, taas oo aan la ogeyn sida ay dhinacyada kale ku aqbali karaan. Xasan Cali Khayre ayaa noqday ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa burburka kadib, inkastoo lagu eedeeyo inuu aad ugu dhex raftay golihiisa wasiirada. dhammaan su'aalaha ku hareeraysan Farmaajo iyo Khayre ayaa jawaabo dhammaystiran loo heli doonaa bilaha soo socda xilli ay dhawaan furmayaan kulamada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.